boqolaal qof oo isugu jira rag iyo dumar oo dhalinyaro qayb ay ka yihiin islamarkaana ku nool gudaha dalka Jarmalka ayaa maalinta berita ah dhagaha u taagaya go'aanka maxkamadda ay ku aadan waxa laga yeelayo dadka sharciyada ku lahaa dalka Greega, dadka faraha ku lahaa iyo kuwa aan sharciyada ka soo qaadan ee xitaa faraha ku leh islamarkaana maalinta berita ah go'aan kama dambays ah maxkamaddu ay ka gaarayso. Maxkamadda ayaa laga dhursugayaa in ay soo saarto natiijo dhinacun u dhacaysa oo ah in dadka la joojiyo oo aan dib loogu celin dalka Greega iyo in ay ku waafaqdo dowladda go'aanka ah in dalka Greega dib loogu celiyo oo halkaasi noloshooda ay ka sii wataan. 16ka waa maalinta berita ah waxaan rajaynaynaa in go'aan wanaagsan oo dadka faraha ku leh dalkaasi Greega sharciyada ka soo qaatay dan u ah in uu ka soo baxo maxkamadda dalka Jarmalka ee ku noolnahay. Waxaan u rajaynayaa walaalaha Soomaaliyeed ee dalkan ku nool in wax qeyr qaba dhagahooda uu soo gaaro maalinta berita ah. Waxaana xusid mudan in wax kasta oo ku qoran aadan marnaba gafi doonin. Waxaana muhiim ah in la iska yareeyo walwalka, walbahaarka iyo cabsida ah in wax xun uu ka soo bixi karo maxkamadda dalka Jarmalka ee maalinta berita ah kala saaraysa dhinacna u ridaysa in dadkaasi la celiyo iyo in aan la celin. Haddii muuqaalkan uu ku soo gaaray waxaan ka codsanayaa inaad sii gudbiso, like gareyso, share gareyso oo aad si wadaagto asxaabtaada.